سؤال وديان رباه الرجل كسر رجل فاهم كسر عديو هذا أمها سنتهاي رويال فنانك waxaan rabaa inaan weydiiyo fanaan soo salaamaya sidaan wada ognahay adiga oo group ah iyo group kale baa magaalada muqdisho show ku leh 15 bisha maalinta ciida dhaqdhaqaaq badan oo labada group u dhaxeeyana waa jira oo aan baraha bulshada aan kala soconay saameyn intee la eg bay ku yeelan kartaa showga aad leedihiin maadaama dhalinyarada showga ayagana dhanka kale ka wada ay yihiin dhalinyarada magaalada maxaad ka filan kartaan showgiina sidee u noqon karaa isleedahay walaalkay aad baad u mahadsantahay saan horeba u sheegay qof kasta oo fanaana oo magaalo yimid ama magaalo jooga wuxuu xor u yahay inuu show dhigan karo inuu dadkiisa la heesi karo showgana fankuna sidaan kuu sheegayba waa dooq marka taas anigu wax weyn uma arko waanan soo dhaweynayaa mar walba fanaankuna meel kastuu joogo waa walaalkay aniga hadduu hargeysa joogo hadduu muqdisho joogo hadduu jabuuti joogo hadduu gaarisa joogo iyo hadduu jigjiga joogaba aniga waa walaalkay aad baad walaal mahadsan tahay aniguna waxaan baan aaminsanahay inaan dadkayga shacabkayga taageerayaashayda inaan waqti la qaadan isaguna uu la qaadan karaa aad baad mahadsantihiin walaal aad iyo aad ayaad u mahadsantahay walaalkii axmed aarshe inankan yarkaan ugu qoranta abi dadka magacyadooda ma akhrin karane السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتك وحنا جرى كيا مقلب أوفيشال كسر هذا مقال عصب مقال كم حكي هذا الدنيا ما الله كم حبوق ودحي فنانين لما جروب يكره جامينا يعني نجم النشاط يو شادي الشرف لما ده جروب بان ما الله كان دجال بان بوكده شو نقوله مقالة مقدشو شادي طبعا كبيش أو يكون بيجنتهاي مالنت عيد يكون بيجنتهاي showga kan baa labada groupba waxay kala dhijisteen min $10 walow xataa labada groupba ay mataqaanaa hadallo isku dhaafsadeen social media lama oga cidda guuleysan doonta iyo cidda showgooda usoo buuxsami doonta walow haddii mataqaanaa arrinta tan loo fikiro ama loo fariisto ay magaaladu ka badan tahay laba xaflad iyo ka badan magaalada lagu qabsan karo maadaama magaalada 3 milyan kor u dhaafay ay ku nool yihiin xalay baan maanta tan baan waxaan wareysanay oo mataqaanaa oo aan nasiib u yeelanay inaan wacno fanaanka axmed aarshe oo kamid ah groupka la socda najma nashaad baan wareysi la yeelanay su'aalana ka weydiinay barta club house baan su'aalo kaga weydiinay waxyaabaha uu filayo iyo xaaladda hadda taagan ee groupkiisa iyo groupka kale iyo saameynta ay ku yeelan karto showgooda 15 bisha maadaama labada groupba isku lacagna ay dhegsadeen labada groupna fanaaniin wada mataqaanaa dadku wada jecel yahay ay la kala safan yihiin marka su'aalo baan weydiinay sida uu kaga jawaabay baan rabnaa inaan wax ka dhageysiino dadkuna su'aalo bay weydiinayeen xalay baan club house ku soo casuunay marka waxaan rabnaa inaan barnaamijka marka aan isheeg maxaa la arrintaa nala dhageysataan oo nala fiirisaan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saaro si aad u rukumato fiidiyodeena fiidiyogana like garay comment garay siina share garay si aad mataqaana u rukumato maalin kasta barnaamijyada aan soo deyno waxaan ma inaan idin shidno marka xalay maanta tan isheeg maxaa lahaa casuumaadii aan u fidinay isheeg axmed aarshe iyo waxyaabihii uu ka yiri baan rabnaa inaan idin shidno marka inaad nala dhageysataan baan rajaynaynaa iyo waxa uu ka hadlay axmed aarshe weliba laftigeygu su'aal baan si toos u weydiiyey bal waxaan rabnaa inaa waxaad nala dhageysataan الرجل كسر رجل فاهم كسر عديو هذا أمها سنتهاي رويال فنانك waxaan rabaa inaan weydiiyo fanaan soo salaamaya sidaan wada ognahay adiga oo group ah iyo group kale baa magaalada muqdisho show ku leh 15 bisha maalinta ciida dhaqdhaqaaq badan oo labada group u dhaxeeyana waa jira oo aan baraha bulshada aan kala soconay saameyn intee la eg bay ku yeelan kartaa showga aad leedihiin maadaama dhalinyarada showga ayagana dhanka kale ka wada ay yihiin dhalinyarada magaalada
maxaad ka filan kartaan showgiin sidoo u noqon karaa isleeda jawaabta fiir dhegeysta walaalkay aad baad u mahadsantahay saan hore u sheegay qof kasta oo fanaana oo magaalo yimid ama magaalo jooga wuxuu xor u yahay inuu show dhigan karo inuu dadkiisa la heesi karo showgana fankuna sidaan kuu sheegayba waa dooq si fiican marka taas anigu wax weyn uma arko waanan soo dhaweynayaa mar walba fanaan kuna meel kastuu joogo waa walaalkay aniga hadduu hargeysa joogo hadduu muqdisho joogo hadduu jabuuti joogo hadduu gaarisa joogo iyo hadduu jigjiga joogaba aniga waa walaalkay aad baad walaal mahadsan tahay aniguna waxaan baan aaminsanay inaan dadkayga shacabkayga taageerayaashayda inaan waqti la qaadan isaguna wuu la qaadan karaa aad baad mahadsantiin walaal aad iyo aad ayaad u mahadsantahay walaalkii axmed aarshe si fiican buu kaga jawaabay su-aasha aan weydiiyey su-aasha waxay ahayd maadaama group magaalada ah ay kala dhexeeyaan isha maxaa challenge aad iskula jirtaan showgiin sidoo u ekaa karaa maxaase ka filan kartaan baan dhahay maadaama baraha bulshada aan kala soconay maalmaha kan dhaqdhaqaaq xun buu jiro labada group ah si kastay ahaataba fanaanku waxa weeye su-aalo badan baa meesha lagu weydiiyey oo taariikh faneedkiisa iyo waxyaabaha la halmaala labadan group waxay isku hayaan show dhici doona 15 bisha tan ku beegan maalinta ciidda ah lamana oga qolada mataqaan dabkooda shida doonta laakiin waxaan rajeynayaa labada group inay maqaayadooda wada shitaan maadaama labada group ay dhalinyaro Soomaaliyeed yihiin waxaan ay sameynayaan yihiin wax entertainment oo dad badan u sameynayaan waxaan rabaa inaan ku sii socno su'aalihii dadkooda weydiinayeen inaan kamid ah aan maqashino Axmed Aarshe oo aad wada garanaysaan Axmed Aarshe aye walaal sanadka 2015 waxaan ka qayb galay tartan Somaliland Got Talent loo oran jiray waana kaga soo baxnay 5 qof kaalin ka galay kadib waxaan u soo gudbay 16 inaan isku dayo anigu heesaan anigu leeyahay qaado maadaama heesaa lagu tartamay markii hore ay ahaayeen heesii fanaaniintii iga horreeyay waaweyn markaa 16 ayaan isku dayay laakiin si rasmi ah waxaan ugu soo biiray fanka 2017 waan masrax waxaa la weydiinayaa waqtiyada fanka oo kusoo biray iyo su-aalahaas baa dadku weydiinayaan barhaye balaaran oo standard saraa oo xidigaha geeska aan soo fulay xilligaasaana si rasmi ugu soo biray laakiin waqtiyo badan ku horeysay oo aan dee soo waday sidii aan dariiqa saxda u iman lahaa way jirtay oo mahadsantay saaxiib su-aalaha baa la weydiinayaa aad baad mahadsantahay sida quruxda badan oo soo koobtay waxaan siinaa markaan cabdirasaaq ما شاء الله دمانتي أنتوني سلامة ضد بدنه معناها بالشيء الصومالية مجا يسمعت كلها مثلا جوجو عبد الرحمن أحمد عرشي إكسوتي أتغني دمانتينا والله في فنان هذا قد معان بوجو صدو ولا كي بوجو كسر ما شاء الله مركا لو سؤال كمان ودينا مقدشو أنت جوتي وحي كلية بدنا مقدشو سنة على أرتو سؤال شيء ذي كان حتى هاي لأن مقدشو معه تلقشي هبين كعيدة أو هيس ميا أو تلقشي أو قاعدين ما دام أكمل ده هذا كذا تكون نصيب كحن أو عن كقيب قلنا ما دام ذلك عن جوين مركا هيس ميا أو تلقشي غير مقدشو يو وحي كل عجيب سنة أو قارد su-aalo baa la weydiinayaa arshoo magaalada muqdisho ma hees adigu talagashay ayaa jirta dabcan de magaalada markaad tagto dee hadiyadeedii way kugu leedahay su-aasha labaadna waxa weeyaan intaad muqdisho timid maxaa kugu yaab ka badnaa aad iyo aad suldaan baa hadda kahor wuxuu waxaa ugu yaab badnaa abaay buu yidhi hadda kahor marka ku soo amaarshe su-aalo badan baa la weydiinayaa odaga walaal waan maqlay walaalkayga la soo hadlay horta Soomaalidu sideedaba dee waa isku Soomaali laakiin ama lahjada noqoto amba waxyaabaha ay wax u kala yaqaanaan ha noqoto waxyaabihii iga qosolka badnaa waxaa kamid ah maalin anigiyo nin saaxiibkiisa kaliya kulciye iyo Shaafici Qarandoon iyo cabdiqani garka iyo aan wada soconayo markaa sharaabiya la dirbanayo sharaabiyadii markaa wixii ay sheegayeen
mid ka mid a markaa wuxuu yidhi aniga isbarmoota ii keen isbarmootadii markaa magaca ayaa aad aan ula cajabeeyo waxaan idhi ii keen markaa isbarmootadaasaa igu qosol badayd oo aan ka helay magaca isbarmuuta waa taqaanaa waa limanbeelmada weeye waa cabitaanka aad u macaan weeye haye taasi ayaa qosol iyo dee magaranaysaa haddii noqoto dee la yaab iyo farxad iyo waxna calashaan sida lai soo dhaweeyey sida lanoogu heelan yahay siday muqdisho u tahay magaalo soo dhaweynta iyo martida iyo aada ugu wanaagsan ayaan run ahaantii u riyaaqay waxaana leeyahay dadka reer muqdisho kuwa maqan iyo kuwa jooga hablayiib ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxay mataqaanaa ka siman yihiin ama isku mid ka yihiin waxa weeye soo dhaweynta iyo dad jaceylka iyo mataqaanaa waxa la halmaala barnaamijkuna waxa weeye waxaan rajeynayaa in mataqaanaa labadaa group haddii laga maarmi waayo in hal meel laiskugu keeno oo iscafiyaan ama hal bandhig faneed qabsadaan waxaan rajeynayaa labada group in barsadooda ama maqaayadooda u shidmato qoloba gees ka ceshto maadaama dhammaantood ay dhalinyaro yihiin si kastay ahaataba barnaamijka kan waxay kusoo kordha dagaalka kan u dhexeeya labada gabdhood salka ku haya si kasta ay noqoto gabdhahan dagaalkooda 16 soo bilowday wixii kasoo kordha iyo wixii mataqaanaa kusoo saa'ida waa inaan soo socodsiin doonaa maalin iyo habeen iyo saacad hadduu ilaahay yidhaahdo si uu barnaamijka ku dhaafin gambaleelka furo channelka subscribe star like grey waa royal family oo inkaga tegay intaan barnaamij noocaana ku kulmi doono sidaa iyo